dhamaystay safar shaqo oo uu 6 maalmood ee ugu dambeeyay oo ku soo maray qaar ka mid ah gobolada bariga dalka Soomaaliland. Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo oo arooriyadii hore ee maalintii Sabti toddobaadkan ka ambabaxay magaalada Hargeysa ayaa safar ku soo maray qaar ka mid ah gobolada bariga kuwaasi oo ay ka mid yihiin gobolada Saaxil, Togdheer, Daadmareed iyo Hawd. safarka madaxweynaha oo ay ku wehelinayeen marwadiisa Aamina Xaaji Maxamuud Jirde Aamina Waris, wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka madaxtooyada Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan, wasiirka warfaafinta Soomaaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cabdilaahi Cukuse, wasiirka maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale, wasiirka gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami, wasiirka waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo wasiiro kale. sidoo kale waxa safarka madaxweynaha ku wehelinayay qaar ka mid ah xildhibaanada golayaasha dalka, taliyayaasha ciidamada qaranka iyo madax kale. muddadii uu madaxweynuhu safarka ku gada jiray waxa uu xadhiga ka jaray qaar ka mid ah mashaariic ay xukuumaddiisu halkaasi ka hirgelisay iyo sidoo kale waxa uu madaxweynuhu soo dhagax dhigay mashaariic kale oo xukuumaddiisu ay dhowaan hirgelin doonto. Axmed Maxamed Siilaayo madaxweynaha Soomaaliland gobolada uu safarka ku tagay oo intooda badan uu hal maalin joogay isla markaana uu ku sugnaa magaalo madaxyada goboladaasi waxa uu meelo fagaara ah kala hadlayay bulshada halkaasi ku dhaqan. waxaanu madaxweynuhu bulshada u sheegay in uu fulin doono waxyaabihii uu u ballan qaaday markii uu ku guda jiray ololaha uu ku hananayo kursiga uu maanta ku fadhiyo. ballanqaadyadii uu sameeyayna qaarkood uu qabtay inta dhimanna uu samayn doono. wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo maanta abaara 2 duhurnimo ayuu ku soo guriyo noqday madaxtooyada dalka looga arrimiyo ee magaalada Hargeysa, isagoo agtiisii ugu dambeysay ku soo maray magaalada Beligubadle ee xarunta gobolka Hawd. wasafarkii labaad ee madaxweyne Siilaayo uu ku gaala bixiyo gobolada dalka tan iyo intii talada dalka gacanta uu ku hayay. waxaana safarkan ka horeeyay mid sidan oo kala ah oo uu ku soo maray guud ahaanba gobolada bariga Soomaaliland, inkasta oo safarkaasi muddadiisu ay kan ka dheerayd. waxaana safarkaasi uu ahaa mid bulshada goboladaasi ku nool ay dhammaantood u riyaaqeen kuna farxeen booqashada madaxweynaha, halka safarkan bulshada ku dhaqan gobolada aanu soo marin ee bariga Soomaaliland ay cabasho weyn ka muujiyeen socdaalkiisa ku soo gaadhin. walow uu madaxweynuhu u sheegay in safarkan uu ku kooban yahay fulinta mashaariicdan gobolada kalena uu tagi doono. safarka madaxweyne Siilaayo uu ku maray gobolada dalka ayaa ka dambeeyay waqti ay dalka ka baxeen qaar ka mid ah hay'adihii samafalka dalka ka waday oo ay ka mid ahaayeen hay'adda MSF oo gacanta ku haysay maamulidda isbitaalka weyn ee magaalada Burco iyo hay'adda General Energy oo sahamin dhinaca shidaalka gobolada bariga ka waday, iyo sidoo kale shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines oo joojisay duulimaadyadii ay ku iman jirtay dalka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa. inkasta oo madaxweyne Siilaayo arrimahan uu ku soo qaaday khudbadihii uu u jeedinayay bulshada ku dhaqan goboladii uu ku mariyay socdaalka kuna sababeeyay in aanay hay'adahaasi dalka uga bixin shaqadoodiina u joojin arrimo nabadgelyo darro ah, haddana lama odhan karo waxa ay daweyn karaan sababihii ay hay'adaha ajaanibka ay dalka uga baxeen, maadaama ay bulshada Soomaaliland u hanqal taagayeen howlihii ay hay'adahaasi dalka ka wadeen. su'aalo badanna iska weydiinayeen sababaha ay shirkadda sahaminta